وصوده هذا يقولي بأذيقه أغمانت إني تهي مالنتي وانوغينا صداي إيرا اللقاء لكن سمانتو مالنتي أو ما قرنيسن ميا مالنتي تهي وانكو عياري وانا صعدا ومالنتي أني هذه حركة جيل كان بلون قاعد سامبليو وان فرحسنا هاي مادام حسوسته مانتا وحانس لها نعسكا جعشها ما حسوسنا مانتا نعسكو حلبو الماما لكن لقم يابنا الماما مالنتان وايو حاني لقرح ليدان تو موجودين إيهد مالنتا كويلي أنا وحي هاد مالنتي ونصيبك بانيد مالنتا هذيك جعلات isla markaana aad ii sheegatay jaceylka gacali mid ma ku dhahaane xabiibi waan ku jeclahay inta aad dareemi kartid iyo inka badanba waan ku jeclaan doonaa inta aan noolahay haddii aan geeriyoodani waxaan ku rajaynayaa nolol farxad badan ayaad soo wadaa soo maahan lagama yaabo haddii aan ku waayo inaan noolaado nolol farxad badan waan ku barayaa xabiibi ila noolo xabiibi waan wada farxsanaan doonaa نبيلة walaalkayga imaaday oh my god had inta ku qariya alla walaalkayga نبيلة walaal waan soo socdaa kaalay inta ku soo dhuumo محل نحسنت هذه ماي أبوي ما نحسني كلية أذيقا صادق صدي أذيقا أمالي ما وحي قرنوسا ماي ولا أذيقا أمالي وحبكا مكا قرنوي لكن سوى جرينوسا إيه ولا أذيقا كلتهاي مجرينوي ماي ولا القل كان عنيقا لابي كلا سنتهاي هدي أدي ألاب كوتا لما حقا قال أني دانا كليها قولكي بو عنيقا كوسو قواناي وحي رسوك walaal way iga shakiyay maanta beelo taga waxaan dhahaa walaasha waa jeclaysii waa iska ciyaaraysaa adiga walaalkay ma taqaanid waa nin madax adag oo wax walba ka suuroobaan waxaana la shaqeeyay ciidamo halis ah xabiibi waxaan ka cabsanayaa inay waxay ka soo gaaraan adiga cabsid iska daa xabiibtii ku aawahe walaal waan soo socdaa أول قبيلة أصلا دمسترا وصلاونا قد إيسي دياري هيا أبوي الحمد لله هذا صوم فرح سني ها أنا واسيب حياة شقاء يان ليهاي كالي iga balan qaad sanadadan iyo sanado kale oo hadda soo socda waa inaad ila noolaanaysid waliba si farxad leh inta cimrigayga ka dhiman qalbigayga ayaad ku dhex noolaanaysaa waan ku jeclaan doonaa xabiibtii okay bye وريا خالد ما مقليسا maalin hore waatan ku sheegay inuu wiil mar walba walaashiisa soo waco waan ogtahay gabartaas in adiga mar hore ku siiyay haddana wuxuu gaaray heer uu imaayo gurigeyga waxa ka rabaa ninkaas in ay iga soo gabagabeysid sida ugu dhaqsiyaha badan walaashada aniga ayaa isiisay xilkeedana aniga ayuu saaran yahay ka seexa marka arintaas wariyaalkaase ugu dhaqsiyaha badan waxaan doonayaa gabadhan la soo afduubo kadibna dabaqan la soo saar wad fan Soomaa laakiin sidoo soo afduubanaysa gabadha arintan ama ku xumaada walaalkeed warniyo waxaas ka bax ninkaas aniga qorsheey kuma horma karo waayo arintaas aniga ayuu xil saaray muhiimadiisuna waxa waay ninkaas ina gacanta ku dhigo okay waxba kama qabo nacsi xarka iga far hadii kala duu nuurkayga imaado inuusan ku daynaynin ogow
waan ku salaamay gacalsideeda aan aqoontii lahayn. gacalisadaada ma aqaan yaa ahayd adii yaanahay aniga maba aqaan qofka ahee aniga waxaan idinku guursan lahaa ma naxday inaan naxdo waa ku qasban tahay sababtoo ah meelaan aqoon u lahayn ayaa lagu keenay. maxaad iga rabtaan walaalayaalo waa idin baryaa iska kaydaaya cunuga xumaa ma aragta adiga ku jeclaa markuu meeshaan imaado oo aniga dardar markaas ayaan aniga meesha ka baxaysaa inta ka sokaysa ma ka bixis weliba bishaaro kale ayaan ku hayaa ani iyo adiga waan isguursanaynaa say aragtana aniga inaa xaas kuu noqdo iska daay hortayda aad taagantaa ayaa dhib igu ah waana ka shalaanaysaa tan Khalid ninka wuu imaaday واو ستيل بوي نبيلة wiilashan oo kale aad ka heshaa soo maahana waanba ka helay kaal iska arag hayo wariyaa ma cabsanaysid miya rag ka hortaaga ma ujeedid miya wariyaa gabadha xaray ka furo ee anigi la hadla soo anigi ma doonin amar kaal iska arag hadda ayaa imaaday isla markii amar ayaad bixinaysaa waxaad leedahay gabadhan xaraga laga furo nacas adigoo kale uma jawaabi kara ee ujeedkaada ka hadal ujeedkeena waa inaad dhimataa ninkaana oo gabadhan guursadaa waayo walaalkeeda ayaa siiyey walaal oo haddii gabadha lagu siimo soo afduubanaysaa muhiimadda ma ahayn gabadhan aan soo afduubto ee muhiimadda waxay ahayd labadeenna is aragna saaxiib si aan kuu dilo adiga walaalkeed inay afduubatin haddii ogaado maxaa idin ku dhici kara mala socotaan adike war adiga dhacdhac badanida walaalkeedii aniga saaxiibba ayaan nahay gabadhanna waa midii saaxiibkay aniga aan ku xidid lahayn waa markii ugu dambeysay aan kula hadlayo gabadha xariga ka fur oo haddii kale maxaa samaynaysaana haddii kale kow ayaan kaa siinayaa waad dhimanaysaa la soco walaal inaa ku dhax xitaa uma qalantid laakiinse waxaa tahay shaqsigii hooyo aabbo markay dhinteen kadib isoo garab qabtay balse waxaa ii dambeysay inaad tuugo igu soo dalbato si ay aniga ii afduubtaan walaal gabadhan walaashaada waan jeclahay ayadana waa ay jeceshahay darteedana nafsadeeda waan u hori karaa mana ka maarmurantii balse hadda lagama yaabo inaan kaa wato si sharaf leh ayaan kaaga soo doonanayaa istaag familkaaga cusub yaa meel cidlaa ugu dhaqaajinaysaa gabadhan adi ayaa xaq u leh weligay waxaan aaminsanaa gabarta walaasheeda farxaddeeda inay aniga gacanteeda ku jirto laakiinse waxaan ilaabay gabadha walaasheeda inay weynaatay kaalay saaxiib macad
saaxiibkayga ayaa tahay maanta kadibna gabartan mas-uuliyaddeeda adiga ayay ku saaran tahay arooskiinana aniga ayaa qaban qaabinayo soo ma faraxsanid walaasheeda haa walaal gacantaada ii dhiib adna gacantaada ii dhiib